haddii markaa inagu Soomaali hoosoo daadagay Soomaali waa isdirirtay ayaa inoo soo gurmaday bacda Allah subhanahu wa ta'ala cidna nin abaal lagu lama jira oo carab ah oo oranaya ana soo gurmaday ana wax ka qabtay turkigani wuu maqnaa way imin lahaayeen laakiin maqnaa way maqnaayeen ma jirin waxa isticmaalmaaniya markaas waxaan iscunaynay 30 sano oo wax yar la bal dawladda intay noo soo gurbatay xataa lacagina siisay jirto waxay nagu kallifeen baasaboorradeen intay diideen inaan axmaaro iyo keene iyo Uganda iyo Tanzania iyo gaalada Yurban kala gura qaadano oo keenina la aaso la waayo oo fiisa la nagu siin waayo oo ninkeenii tagay soo raafaan oo xiraan oo tijaartii soo eriyaan carabida wax kuwaas maxay naga rabaan marka maanta maxay naga raadinayaan maxay naga raadinayaan maanta carab horta wax kuwaas waxaan ka baqayaa oo ka cabsanayaa in qol rabto Soomaali intay qabsato inay u gumaysato oo la inoo soo xidha qabiiskii Xaaji Cabdullaahi qabay ninkii loo oranayo xeebaha Soomaaliyeed magaalo kamid ah salaada ku tujin jiray oo buriye qabka ah oo qamiiska intuu soo xidhay odayaashii fidriyiinta oo Ilaahay iyo maaragtay diintiisa jeclaa ay u haystaan lillaahi oo muslima oo ninka buriye qaba oo waa gaal wuxuu u yimid kaliya inuu Ingiriiska u tajassuso Soomaaliya oo dabaayicdeeda iyo meesha laga galay iyo sida loo adoonsan karo iyo sida loo isticmaalsan karo iyo barayay iyo la soo ururi marka maadaama la inuu soo dhici kareynin hadalkayga baa daba taaganahay dad baa ogtahay wadaad muxuu ula jeedaa Soomaali baa ku xigta ana cabsidii baan taaganahay in qamiis inta la inoo soo qaato qolo aan ogol lahay oo caraba oo muslimiin ah intay wadanka soo galaan ay qabsadaan ay noo dhiibaan marka gaalo waa ta ka cabsanaya weey wararna waa qabaa ana halka ka sheegi karay waa qabaa oo xaqaa'iq ah oo aniga la ii sheegay waa jiraan dad badan aan u sheegay waxaan marka ku khatibayaa qolada baarlamaanka asbaa hore hadal yar oo adag baa ku yiri hadda waxoogaa waan ka soo tanaasuliyay nimanka baarlamaanka oo hadda mooshinka wada federaalka ka hadli nimankaas fariinta aanu farayo waxa weeye oo aanu marinayo idaacadaha iyo telefishinada iyo website-dada iyo wasaa'isha qalabka hadda wuxuu la isu gaarsiiyo warka aanu marinayo waxa weeye anagu shacabkii hadaan nahay waa daalay waxaan ka daalay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isrida oo is haysta labadan hadda maanta joogo oo farmaajo iyo ninka la yiraahdo khayre hadday is ogolaadeen oo inay maaragtay midba midka kale riixaynin mooshinka naga daaya oo lacag inta dibadda ka qaadateen Soomaaliya ha ku burburinina midna ogaada dadka waxaan wada munaafiqiin baa ku jira gaala ah munaafiqiin baa ku jira sababta quraanku saddex buu qaybiyay midna waa gaal cad laba aayadood bay suurada baqara ku sheegtay midna waxa weeye dad muslimiin oo waa inagoo kale afar aayadood baa lagu sheegay 13 aayadood baa lagu sheegay munaafiqiinta khatarta ay leeyihiin dadkaasina dadka waa ku dhex jira munaafiqiin baa ku jirta marka waxaan leenahay mooshinka joojiya hadaad joojin weydaan wallahi billahi tallahi akhruilkan habarayna wallahi billahi tallahi ilaahi baa ku dhaaran xoolo dad ma cuno wax ma dhaco dhiig ma daadin kama talinin ilaahi baan ku tawassuli dadka aniga ila mid ah oo buuxa oo Soomaali ah oo gudaha jira oo dibadda jira ilaahi waxaan inii baryaynaa hadaad mooshinka joojin weydaan kansar iyo AIDS iyo beerkaad u dhimanaysaan hadday joojin waayaan saddex iyo cudurrada xunxun baa kaliyaha beeraysaan halkan ay ahayd markaan niman ari ka shaqeeyo idaha dhoofiyaan war ka daayay diideen waa habaarnay kaliyaha laga daadiyay ma yani ma alfanin wallahi billahi nadin alfaninin mooshinka hadaad joojin way alfan weydeen Soomaali waa burbur waa baaba badaheegi baa la cunayaa macdanteedii baa la guranayaa waa la naduleystay wallahi billahi dadka Soomaalida iyaga ay saystay waa qoom baasawi waa dagaalka yaqaan oo dhimashada yaqaan oo gaala wadkooga qabsan kareen
هذا الكان لها ولما يجي بختي باتيني أو يجي كحضان سلال لسان تضربطان أنت أسأل الجيدي لكن صومالي وتدفي عنه قرآنك افتيان دين تجاوزين وأهل قبلة وطنك الله نجا قادي مايو والله بالله قبور بانكو قرينا نيك لوغي ماده مقلا قال مقلا وحي وتو مقلا دغيستا هذا ودنكا نوغو تيمادان markaadna aastaan markaas tan ka qaadaysaan والله سبحانه وتعالى Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran